بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan rabaa inaan kasaan uga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waxaan rabaa in la qaybsado xanuunkii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. ilaahay u naxariisto sabri iimaan intii ay ka geeriyoodeen dadkaasi Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah caafiyo. runtii waxaan la qaybsanaynaa xanuunka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa jannada inuu geeyo dadka dhaawacana ilaahay caafiyo burbur hanti iyo mid nafeed iyo mid nafsiba waa ka dhashay arintaasuna waa runtii arin muddo soo socotay argagixisada gaar ahaan al-shabaab ay muddo ku hayeen ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad aan uga xunnahay dadka Soomaaliyeedna maanta waa ka dharagsan yihiin shabaab waxay yihiin inaysan sharax haday diin ku gabanayeen maanta aad ay u caddahay inaysan diin xiriir la lahayn bal ay yihiin dad mujrimiina u soo shaqo tagay ummadda Soomaaliyeed inay baabi'iyaan dhibaateeyaan waxay hortaagan yihiin fidinta diinta islaamka waxay hortaagan yihiin dawladnimada waxay hortaagan yihiin horumarka marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa meel ay joogaanba inay horta garab istaagaan dadkii dhibaatada soo gaartay dadka Soomaaliyeed maanta duruuf dhaqaale ay ku jiraan oo adag marka qofkii laga dhintay ama qofkii laga dhaawacmay asagina daryeel u baahan yahay qofkii dhaawac ahayna daryeel u baahan yahay qofkii dhintayna asaga laftigiisa tartiib u baahan yahay marka ganacsatada iyo dawladda iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan dadkaas waa runtii arin culayskeeda leh oo la og yahay waxa laga yaabaa qof quutul yoomkii ku murugsanay in uu dhinto dadka uu ka soo tagayna ay meeshii joogaan marka loo istaago la garab istaago dadka Soomaaliyeed wixii lagu bartay oo ahada xillig adag in la garab istaaga taas maanta loo baahan yahay qodobka labaad waxa waaye arintan waa ka duwanta arrimihii hore waxay ogtahay inay jawaab u tahay dagaalka xoogan ee lagu jiro al-shabaab ee la rabo dalka in looga xoreeyo inay jawaab u tahay ujeedaduna ay tahay dagaalka in la kala daadiyo marka waxaan leenahay yaan loo jilcin hal la sii laabo dagaalka maxaa yeelay xal ma laha waxaad ogtihiin 2009 waxaan isku daynay inaan culimada adduunka intaan ugu yeerno niraahno war dadkan iyo culimada Soomaaliyeedba dadkan waxay rabaan ha keenaan diin haday rabaan diyaaraan nahay haday xukun rabaan diyaaraan qaybaan siinayna intaba waa soo diideen marka afkaartaan afkaar diimeed ma aha bal waa afkaar lagu dhibaateynayo diinta islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed marka shalay ayagoo ducafa ah oo masaakiin ay yimaadeen dadka Soomaaliyeed waxay u qaateen inay diinu ka maqanta laakiin maanta waa muuqata inaan diinu ka maqnayn marka waxaan leenahay dagaalkooda ayaan laga jilcin ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo dhammaan goobaha kala duwan ee hawluhu ka socdaan deegaanada kala duwan ee dagaaladu ka socdo inay sii laabaan waan ku mahadsan yihiin waa ugu hambaleynaynaa runtii dadaalkaas sidaas oo kale meelaha ay joogaan ee aan wali laga furin furmahana in looga furo maxaa yeelay culayska in la wada qaataa fiican la wada qaado markaana waxaa muuqata fursad weyn oo looga xoroobi karo al-shabaab marka in mataqaana dawladana la garab istaago dadka dagaalamaya la garab istaago aagana la furo oo lagu badiyo sidaas aan ku talinaynaa intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dadka adduunka ama dawladaha daneeya Soomaaliya ee runtii xilli dheer la garab taagnay kaalmada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka ay sameeyeen gaar ahaan dawladaha sida gaarka uga taageera hadda ciidanka iyo shacabkaba arrimaha la dagaalanka argagixisada inay sii laabaan dadaalkooda iyagoo ku mahadsankii hore maanta fursad waxaa muuqata looga xoroobi karo shabaab in ay noqoto taariikhdii ugu dambeysay ee shabaab la arko waxaan rabaa inaan u gudbo al-shabaab naftarkooda shabaab waxay u qaybsan sidaan ognahay dad munxarifiin ah oo fikir khaldan ummadan ku hogaamiyay oo aaminsan caqiidahan oo aaminsan dhiigga islaamka inay daadiyaan iyo kuwa siyaabo kala duwan uga qayb qaata kuwa munxarifiinta
waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahooda usoo laabtaan dhiigga islaamka ay daadanayaan ay joojiyaan. dadkan waa muslimiin. ummadda soomaaliduna taariikh dheer ay u leedahay diinta islaamka waxay kusoo gaartay hab silmi ah, hab nabadeed ay kusoo gaartay, dhiig kuma daadanin. weligooda waxay ahaayeen dad muslimiin ah oo islaamkooda ku wanaagsan, fidiya islaamka. Zaylac iyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale weligood waxay caam ku ahaayeen diinta islaamka inay fidiyaan oo loo soo doonto culamo waaweyn ajil ah ka timid halkaas. marka maanta waa nasiib daro wiilal yaryar oo diinta islaamka aan aqoon u lahayn, taariikhdeeda la socon, oo la marin habaabiye inay ummadii u dilaan, waa ridowdeen iyo waa gaalowdeen. waxaan rabaa inaan xasuusiyo diinta islaamka meel lama gaarsiin karo haddii dowlad la waayo. masaajidii iyo mataqaanaa duruustiisu ajirti waxay istaageen markii al-shabaab uu yimiday. sababtuna wax kale ma amniya la waayay. marka diinta islaamka ayaga caqabad ku ah, nolosha ayaga caqabad ku ah, dowladnimada ayaga caqabad ku ah. waa cadowga koobaad ee maanta dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. marka waxaan leenahay war haddaad diin u gargaaraysiin marka ugu horeysa horta barta. marka ugu horeysa barta, fahma wax aan dhiig islaam ahayn oo ummad in la burburiyo ahayn na ka shaqeeya. oo maanta qofkii raba inuu wanaag sameeyo agoontaas oo kaalmay karaa, dugsi quraan oo dhisi karaa, masjid oo dhisi karaa, dad dhibaataysan oo kaalmay karaa. hadduu wax kala waayo waajibkii ilaahay ku lahay iyo waajibkii waalidiintiisa iyo qoyskiisa hadduu qaato intaasaa ka badan. marka waxaan leenahay ilaahay usoo laabta. kuwa la marin habaabiye waxaan leenahay xilligii waa soo dhammaaday. usoo laabta dadka Soomaaliyeed, usoo laabta dowladnimada, ka qayb qaata maanta ugu yaraan dhiigga daadana inuu istaago. erey yaraan rabaa inaan idhaa marka oo ugu dambeeya. fikirkan fikir maanta soo bilowda ma ah. khawaarijtu waxay soo bilowdeen xilligii sayidina cali bin abi taalib karamallahu wajha. waxaad ogtihiin cabdullaahi bin muljim wuxuu ahaa nin xaafida oo qaari ah oo diinta islaamka aad u yaqaan. haddana sayid cali wuxuu u dilay inuu sayid cali murtadi hogaaliyo. marka qofka sayid cali oo xilligaas joogay oo la ogyahay sharafkiisa iyo maqaamkiisa iyo meesha uu ka joogay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maqaamka uu ka joogay agtiisa, qofkii diin u dilay kuma daynayo adiga. marka yaanan marnaba isdhihin afkaartaanu hadday bilaabatay hore u jiri jirtay, weligeedna sidaana loola diriri jiray. marka yaan loo kala harin. maanta fursad looga adkaa karaa jirtay ha laga wada faa'iidaysto. gabagabadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu ummadda Soomaaliyeed ee dadkaas mujrimiinta ah ee usoo shaqo tegay ee kuwana ajaanib yihiin, kuwana ay yihiin dad Soomaaliyeed la marin habaabiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu uga gargaaro ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo horumarkeeda u soo celiyay sharafkeedii. maanta runtii caqabad ka weyn ma jirto joogitaanka al-shabaab iyo dhibaatada ay ku hayaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.